imise kiis baa ilaa imika la soo xaqiijiyay xanuunkan COVID-19 ama coronavirus? bismillaahi raxmaani raxiim. aad baad u mahadsantahay cabdisalaam. ilaa hadda intaan waqtigan joogno runtii 6 kiis hore unbaa la soo xaqiijiyay. waxay maqan oo ama dareenka suspected ama la tuhunsan yahay ilaa 12 qof baa la diray. runtii aad u raagay marka oo wali jawaabtoodii ayna imanin. laakiin intii la xaqiijiyay hadda waa 6 hore. marka xagee u dirtaan in baaritaanka lagu soo sameeyo? waxa loo diraa runtii Kenya. inkastoo imika yimiday mashiinkii lagu taskareynaya PCR-ka la yiraahdo oo imika ay soo direen WHO noo soo direen maca labadii nin ee ku tababaraya dadka halkani. marka imika waxa ka dhiman xogaa reagent waxa qalab dawooyinka lagu dardaray wax yar alaab yar kooban ba ka dhiman. tii waa la sugay maalmaha timaado waxaan rajeynaa kulleen hadda maanta ilaa shalabeena bilaabantay tababarku bilaabmay. 6 qof marka ilaa imika la soo xaqiijiyay magaalooyinka ay ku kala nool yihiin. mid waa ogtaa nin iska ajaanib ahayo shirkadahan dalka shaqeeya oo nin Chinese waxa barbaruumka ugu dambeyntii joogay. ninna burco ku sugnaa, labana Hargeysa, midna Boorama. marka adu 6 waxay 3 qof oo reer waa recovery waxay galeen dadka bogsadeen way ka soo bogsadeen. marka dibadda loo diro baaritaanka dadka lagu sameeyay si loo soo xaqiijiyo muddo intee lag bay qaadataa? runtii maalmihii hore waxaad moodaysay inay markii hore maanta labada hore la xaqiijiyo muddo badan bay maqreen. laakiin markii dambe qaybtii dambe labaad soo xaqiijiyeen iyo tan imika maqreen walaanaan haynin oo ay raajiyeen waxaad moodaa in culays ku yar farabatay halka shaybaarka ku yaala Nairobi. marka muddada baaritaanka la wado ee la soo xaqiijinayo dadka la tuhunsan yahay xagee ku haysaan? orina qof uu og yahay runtii wax dhibaato weyn ka muuqato oo asaga la yiraahdo is-ilaalinta marka jawaabtu imanayso marka inta badan guriyooga ay joogaan. marka jawaabtu timaadana si toos ah loola macaamilo maanta wasaaradda caafimaadka loola macaamishaa. dadna marka hadduu guri ku noolaana waxa loo sheegay in guriga isagu qol gaar isku sii gooneeyo oo dadkiisa kale iska ilaaliyo. marka hore xulida waa loo sii sheegaa marka diyaaradda jawaab timaadana waa si gaar ah loo sii xanaaneeyaa. hadduu de hotel iyo waxa marka ku jirana qolkiisa hotelkaas lagu xanaaneeyo marka qol gaar loo gooneeyaa. mudane Saylici gudidan aad madaxda u tahay waa gudi wasiiro badan waxaana la idinku dhaliilaa in khubaradii dhinaca caafimaadku gudida aanay ku jirin. arrintaasi dow ma tahay? waa suuragal lagu dhaliilo laakiin waxa meesha ku jira tala ayaga lahayn anagu kuma dhaqaaqno. waxaa naga dambeeya 4 doctor oo wada PhD u badan oo waliba qaarkood ay ku takhasuseen xanuunadani maarteen faafa fayrasyada noocan oo ku jiro Axmed Xuseen Ciise oo waqti hore PhD ka soo qaatay dalka Mareykanka. waxa ku jira Dr. Maxamed Geed Qayaad oo imika dhawaan ka soo taaggaroobay dalka Mareykanka oo ah ragga Mareykanka hay'adda CDC la ragga hogaaminaya xanuunada faafa isna PhD ku haysta. nin kale oo isna waxa jira ka soo taaggaroobay WHO da Maxamed Warsame oo la taliyaha madaxweynaha. raggaas ama yaa noo iyo dhaqaatiirtii hore waddanka shaqeynaysa intuba taladooda waxaan ku shaqeynaa anagu siyaasadda guud u maalmaareynaay. marka arrinta caafimaadka noqoto waxaan daba fadhinaa dhakhtarada 4 dhakhtar oo la taliyaha guuda iyo dhaqaatiirtii kale oo jiraysa wasaaraddu lahayd. laakiin mudane dad fara badan baa qaba in tirada dadka uu hayo xanuunkan coronavirus ay aad uga badan tahay inta imika la helay ama la tuhunsan yahay. markii Soomaaliland timaado dadkaasi markay saaleeyay waxay ka duulayaan wadamada kale gobolka. Djibouti waynu la soconaa heerku marayo. Ethiopia intan ay idinku sheegteen aad buu uga badan yahay. Soomaaliya qudheeda koonfurta aad iyo aad ayuu dhibaato xoog leh ugu hayaa. marka ma isleedahay halkan qudheeda aad buu badan yahay waa laga warhaynin? waa suuragal maradan aynaan sameeyeen baaritaan joogto ah. runtii waxaan dareensanahay in wadannada jaarkeena sida Djibouti oo kale inay maalintii u yaraan 400 300 oo ay jeegarayaan iyo ka badan. taasina ay keeni karto in soo baxaan tiro badan oo marka suuragal qudheeda waxa laga yaabaa marka inaga mashiinka marka shaqadiisa bilaabo la bilaabo testing-ka la bilaabo in dad badan la jeegarayo waa suuragal in marka inuu dhex jiro. laakiin wuxuu soo muuqdaa midaanan culays badan
inagu haynin oo aslan wadanada nimanka dhulka Europe iyo waqooyiga Ameerika dhaco kale soo dadku isma qareen haduu xanuunku aad u dhibta ay ku farabaanto heerka la sheegay hospital in qof gaar dhakhtarka ama inuu naqas ka qabto haduu gaaro idna isma qarin karteen laakiin soo yaabaa jirkeena ku jiro waliyo taasi baaritaan ku soo bixi lahayd suuragal taasi guddidiinu tan iyo intii la sameeyay tallaabooyin fara badan ayaa qaadateen waxa ka mid ah mamnuucidda qaadka oo sabtidii uu dhaqan gashay inkastoo meelo fara badan lagu qayilayay waxa kaloo go'aamo ka soo saarteen gaadiidka dadweynaha tusaale ahaan iyo sida loo isticmaalayo gaadiidkii dadweynaha haddaynu ku horeyno kirooyinkii lagu raacayay oo 2000 ahaa 3000 bay noqdeen laakiin sidii awal loo rari jiray ayuunbaa loo raraa ma kula tahay go'aamadiinaas inay noqdeen qaar aan waxba ka soconin may runtii waa laga yaabaa dadka qaarkood ee war kastoo xukuumadda go'aan soo saartay ama dawladda go'aan soo saaraan cid tuugeysta way jiraysaa laakiin se go'aanadii inta badan runtii 180 way fuleen for example transport kaas oo kale hadii dibadda tahay iyo hadii gudaha tahayba 180 ilaa 90 way fuleen sababtoo ah gudihii kala barkii aan ugu talagalay la qaadaan qiimihiina 150 bay yaan isla garanayno kordhiyaan dibadina waa saas leeg meeshii bas walba uu qaadi jiray kala barkeeda uu qaadaa wuxuuna isla markaa qiimihiina halka laba laab ku dir lahaa waxaan nidheynay 150 ku daraan marka meeshii $10 lagu tagayay halkii 10 laga dar lahaa inay 5 ku daraan meeshii $4 lagu tagayay halkii 4 laga dar lahaa 8 noqon lahayd 150 ku daraan 6 bay ku tagaan sida boorama iyo wajaalo kaliyo burco lagu tagay $6 9 baa lagu tagaa dadkii ma nafis bahelaan taasina waxaan ka fikirnay oo aad u rognay maadaama dal dhaqaale lahay dadkeenu ayna sameyn karin waxa la gaadho bixin lockdown-ka inaan wada xidhno wax walba oo la isku socon goboladii balaalmiina si risk u yaraado inaan 50% ka dhigno oo dadkii 20 qof oo bas wada fuulaa ama 30 wada fuulaa inay half ku fuulaan si haddii qof dhibaato xanuunkiisa daayay uu soo galo inuu risk yaraado يعني قلت لك runtii wayna fushay inta badan mudane laakiin waa runta marka ay noqoto gaadiidkan dadweynaha ee magaalooyinka u kala baxa tirooyinkii waa la dhimay waayo control maraan oo askartii ay ku eegayaan laakiin kuwa magaalada Hargeysa ka dhex shaqeeya sidii ay u rari jireen bay wali u raraan iyo qudhada control wala waxya oo guddiga caasimada loo xil saaray iyo maamulkii degmada iyo wax dhan iyo qudhada wala waxya meel ay ka tuugaysan fayada mooyaane laakiin ma dhacayso inuu qofkii intuu sidii hore ku qaada lacagta ku qaada gareeda waa dib taasirtii aad baa loo socdaana taqaadka buklata inay soconayso runtii waan rajaynaynaa soconaysa sababtoo ah wala socotaa oo inta badan dawladuhu amar bay soo rog jireen ama imika ba dawladda jaarkeena oo kale waxbaan joojinay iyagu amar bay soo rogeen anagu se muddo bila aan wada tashi ka lahayn dadka jaarkeena runtii waxayna runtii bixiyeen signal wanaagsan bay bixiyeen oo yiraahdeen waa wixii nafta lagu badbaadinayo ee ummadeena ku badbaadayso waa in la qaadanayna marka aakhirkii shirki u dambeeyay iyagoo runtii intii badan noo tibaday waa in la qaateen inay yiraahdeen maanta bisha Ramadaan waan qaadanaynaa inaan ka fadhino laakiin waxa laga yaabaa dadkii aan suuq ka haysaneen awoodii ka haysanay ee hoose oo isagoo waxaan yahay kulli wax iska muqaddaraada dad badan yaa soo kacaya kaaysa dagaalasiina dawladda hay'adda inta taala marka runtii waan qabaa inta badan hirgalaya sababtoo ah waxaan la qaatay go'aanka qoladii maartay ganacsiga waaweynada runtii soo dejinaysa waan la qaatay sababtoo iyagu haday maanta wadaan culays badan bay malaha oo iyagu dhaqaalihi baa haystaan gaadiid baa haystaan laakiin hadda iyagu 180 intii bas noola qaadliyaashii waaweynaa ganacsi maartay ka ganacsanay ee soo waaridayay yaan la qaatay kuwaas hadii markaas ay noola hadleen daacadnimada ka muujiyaan oo go'aanka ay qaateen inuu yiraahdeen bisha Ramadaan waan ka nasanaynaa qarankana waan ugu danaynaynaa nafay waan ku danaynaynaa hadii sida ku adkeeyaan inta yar ee imka iyagu nolol maalmeed cusub ka raadinaya waa xukuumadda ku xog badan tahay runtii imka ilaa maantana sideen ogahay waxa tuugo yar iyo ku soo gala mooyaane gaadiid socdo maanta gudihii wadanka soo galay aad iyo aad waa yaraaday shalayna laba meeloodba Hargeysa iyo Laascaanood ba example koowaad waa lagu fuliyay oo la gubay jaarkii la qabtay mudane madaxweyne ku xigeen arinta kale aan jeclayna wax ka weydiiyo waxa weeye ta masaajidada
waxaad moodaa Soomaaliland inay iska indhatirayso wax caalamka intiisa kala dhameeyay hirgeliyeen marka kabcadii la xidhay masaajidadii dunida islaamka oo dhan la xidhay masaajidadii kale ee wadamada islaamka aan u badnayn iyagana tallaabadaas oo kale laga qaaday idinku markii hore amar baa soo saarteen aad kula talinaysaan dadka in ay guryahooda ku tukadaan taasoo si dadban loogu sheegayay qoliyaha masaajidada iyo culimadu inay masaajidada xidhaan taasina ma socon Soomaa runtii taa qudada qayb ka shaqeysay laakiin culimadu markii hore runtii time ku sheegay qolo walba wada tashanay qaybaha bulshada oo dhan sida waddanka maadaama waddan dimuqraadi yahay inta badan waa la tashanay talada waan badinay iyagoo go'aano soo saaray go'aanadaas oo ay aad ugu cadeeyeen markay daruuro timaado in wax walba ka weynta daruurada ka weynta caafimaadka iyo nafta bidaan koo la ilaayo ka qiimo badan yahay oo jamca laga maarmi karo oo iyadoo roob da'ayo ayaa aad ogtahay in la dhahdo salwa rixaanakum waddanka gurigiina jooga dhibaato loo diidayo iyada oo maartay qofku wax makruuh ku ah jamca kale oo sida toonto kale ka waraysa qof nabi Ciise saamiri qoladii waxaad cuntay waxa haboonad ka joogto oo dadka dhexmanaysa in ku garahaysan jamcu markay daruuradii caafimaadka timid wana la qaateen culimadu inay la maartay lagu tukado guryaha runtii markii go'aanka soo baxaysa waxaad moodaa bulshada kulli bulshada qaybaha bulshadu qayb kasta oo bulshada in canaada iyo iska wax walba ku xumee iyo iska iyo ku jirta laakiin culimadu inta badan majority wana la qaateen runtii laakiin waxaad moodaa inay qayb wali ku adkaysanaysa inay waamaan dareen kan baqabin xanuunka dhibaatadiisa iyo sida dhibta loo adduunyada ugu faafay iyo dhibaato u geystay aanan dareensanayn iyad wali moodaa inay ku iyo shacabkeenu moodaa inuu dhagax yahay si uu dhiso qaarkood ku adkaysanaya laakiin waxaan dareensanahay in dad badani ay ka joogaan sidii loo tagi jiray inaan jamci loo tagin masaajidda fara badan baa sidii uu camiran xitaa tii eedaanka oo ay ku taliseen in dadka la yiraahdo guriyiina ku tukada iyana waxba kama socon Soomaa runtii way fuliyeen ilaa badan fuliba ayaa warta fara badan anaguna waxaan diidnay bal maadaama go'aanka aan shacabka reer Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay dhibaatada jirta awgeed inay ka joogaan jamca waxaan yar diidnay inaan confrontation la galno culimada oo masaajidada askari iyo qoy horgeynaan diidnay laakiin sanu aqliga wanaagsan shaqeeyaan jeclayno ay dadku gartaan shacabku iyo culimadu ay gartaan dhibaatada maanta jirta maanta inay fahmaan maanta aan joognana inuu xanuunkii ama khatartiisa intii hore ka sii badanayso sababtoo ah markay Soomaaliya shalay u soo dhacdhacayeen 5 qof iyo 4 qof maalintii 40 qof soo dhacayaan waxa meesha muuqanaysa in khatartii intii hore ka soo badanaysa Ethiopia oo kiiskii hore laga helay agteena dowladda Soomaalida qofka laga helay markaan dadka reer Soomaaliya ku baraarujin sheegay inay khatartu sidii hore kulay ka badan tahay in la ixtiraamo go'aanada xukuumadda soo saartay mudane madaxweyne ku xigeen markay noqoto go'aamadana soo saaraysaan oo adiga qudhaado aad qirayso in sidii la doonayay aanay u wada hirgelin dad fara badan waxay tilmaamayaan in dawladaha nusqaanta ugu weyn ku timaada ay noqoto inay go'aamo soo saaraan oo go'aamadiina aanay fulin oo taasi marka ay dhaawacdo marka dambe go'aamadii la soo saarayay in dadku ay dhayal isaga qaataan arrintaasi ma idin muuqataa horta runtii go'aanadii way fuliyaan majority-ga oo aan lagu daba joogaa waa ka kii jaadka la fuliyay ee gaadiidkii lagala wareegay ee la gubay alaabtii la gubay dadaalka u badan oo ku jira runtii awood badan la saaro in go'aanada ay fulaan meel fiican horta way marayaan oo inta dhaqanka Soomaalida iska dhiga adeega shacabka oo meesha joogaanba aan wali ixtiraameyn wixii loo sheegay distance in kala fogaanshiyo kale qofka xitaa dantu ay baday meheradaha iyo dadka waratada iyo waxaan ku tala jirnaa in la gaarsiiyo qalabka iyo maartay xidhayeen iyo maartay nadaafadda iyo haas laakiin dadkeena ana shaqada haynin haddana isku ururka mar walba isku imanaya waa dhagaadayga shacbigeenu dhasho ilaa dibadii baa laga soo awday runtii markaan waxa naga soo gaaray wadana badan in la Soomaalida waxaan qaatay ka joognaa in Soomaalida mar walba ay distance ay ilaalin kala fogaashi in xitaa guriga loogu tagay iyagoo 5-6 fadhiyo ku dhex yaaraya marka
de waxa dabeecaddeenu jiidanaysa mooyaane laakiin in badan bay awaamir sideeda u fuleen waana lagu daba jiraa meelaha ugu daran ee dadku ay ku kulmaan makhaayadaha imika soo qaaday ayaa kamid ah makhaayadii sidii bay u camiran yihiin sidii bay u furan yihiin ma isleedahay wacyigelintii loo baahnaa dawlad ahaan waa samayseen wacyigelintu runtii aad iyo aad u sarreysaa sidaad la socotay raadiyoogii telefishinkii meel walba runtii aad baa looga wadaa mar walba iminka dee programyada ugu badan ee ka socda wacyigelinta raadiyoga iyo telefishinka iyo social mediahaba waxa ugu badan ee ka socda ayagoo wacyigelin waxa uu yar telefoonka kaliya oo maanta ilaa dadkeena maanta baadiyaha jooga laga yaabo telefishin gaadhin ama raadiyo gaadhin waxa gaadhay maanta qofka maanta reer baadiyaha reer Soomaaliland wuxuu haystaa telefoon buu haystaa kaasa uu yaro kaas wacyigelin ku jirta oo loogu sheegay inuu kala fogaashi nadaafadda gacmaha meedhiya wax oo dhan loogu sheegay markaas leen wacyigelinteena halkaan gaarsiin runtii iyo waqtiga aan bilownay runtii markaas ilaanu maartay Afrikada barinan cid walba kaga horeynay waad ogeedo in maas campaign ma sameynay si talaalka oo kala ah oo 60 baabuur aan u kala dirnay degmooyinka dalka oo dhan 5 cisho 7 cisho say gobolada kala fogaayeen ay maanta soo mareen la gaarsiiyay warqadihii iyo calaamadihii afka maantay inta telefoonka ay ku maqli jireen dadka reer baadiyu iyadoo sawirada iyo calaamadii ku dhanna waa loo geeyo oo tuulo walba maanta Soomaaliland waxay yaala calaamadii stickerskii habkii de qofku uu barad kale arkay farxalkii kala fogaashi oo dhan marka anigu wax leeyahay xagga wacyigelinta aad iyo aad baan runtii uga hawlgalnay waqti horena waa laga runtii baan ka hawlgalnay mudane Saylici waxa la tilmaamayaa cabsi weyn laga qabaa in qaaradda Afrika guud ahaan wali xanuunkan coronavirus aanu gaadhin heerkii ugu sareeyay ee waqtigii daraa uu soo socdo inkastoo tirooyinka ilaa imika la xaqiijiyay saad sheegtay aad u yar yihiin oo 6 qof oo kaliya yihiin Somaliland haddana caawimo shisheeye ma kula tahay in loo baahan yahay inaad dalbataan ma se dalbateen wali taasi waxa weeyaan maanta Mareykanka ka maarmay caawo ka maarmay waaba inaga oo maanta dareero la ixtiraafsanay oo dhaqaale badan lahayn wixii aan u baahnayn waan dirnay response plan-kii wixii lagu hawlgalay oo dhan qorshe ku dhanaa oo qiimaysan waan u dirnay hay'adaha iyo dawladaha saaxiibada ahayn runtiina imika waxyaabaha horeeyay qalabkan protective-ka ee waxa laga hortagayo dadkii noo balan qaaday ilaa imika mushkiladaha intii badan ma soo gaadhin waxay noo soo gaari lahaayeen bankan de kala xidhnaantani xagga diyaaradaha oo DBL oo kala alaabada noo soo siday oo Chinese-ka shirkadaha Chinese oo nala shaqeeya alaabada noo soo sideen Ismaaciil Weerrimet oo naqashada ilaa madaxweynuhu ku hambaliyay haddana alaabtiisii maanta wax yar oo 10% hayn bana soo gaaray intii badnayd ee uu ku hamiyo dadka ugu soo talagalay dadka inuu keeno ilaa imika waxa soo dhani waxay noo soo gaar laayeen restrictions ka caalamka dhacay iyo kala xidhnaanta diyaaradaha iyo runtii noo soo gaadhay laakiin qalab badan baa soo socda oo xagga qalabka laga hortagayo wixii kale qaaliyaha maarta xagga operationka laga hawlgalay ee qalabka dhakhtarada ee qaaliga waxa soo dhan waan runtii waa gudbinay runtii waan u gudbinay hay'ado ay quseysay iyo maarta dalka saaxiibada ahaynba mudane Saylici haddaynu gudubno arrimaha kale Somaliland saameeya gudidii tan ka horeysay ee xoogga lahayd ee dawladda Somaliland ay samayso ee adigu aad madaxda ka ahay waxay ahayd tii abaarihii dhowr sanadood ka hor guud ahaan bagayga ka dhacay abaarahaas gurmadkoodii waxaad dadka ugu baaqdeen in lacag fara badan la soo guro oo kaalmo oo dadka lagu taageerayay dadka qaarkoodna waxay qabaan in hawshii la qabtay waqtiga iyo lacagihii la guray ay lacago aad u badnaayeen dooda saasi macquul ma kula tahay runtii hawsha abaaraha oo soo noqotay runtii laga soo bilaabo 2012 ilaa qayb abaarihii u dambeeyay ugu dambeyntii 2017 xagga bariga u badnaa runtii ummadda reer Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadday joogaan dibadda iyo gudaba dhaqaale badan bay bixiyeen xukuumaddu waxay awooddeeda ku dartay anigu waxaan leeyahay hawshaasi waxaan u maamulnay sida ugu habboonayd ama ugu daafurnayd sababtoo ah waxa wada maamulayay xukuumaddii iyo shacabkii oo contribution qaybta u badan lahaa hadday tahay culimadii iyo hadday tahay ganacsatadiiba marka dadku bini'aadamku tuunkaas ka badan oo wax kasta oo hawl kasta la qabanayo waa tuunka ku far badan
laakiin hawshaasi wax aan oran karo hantida waxaan abaarihayn meel lacag kale aan abaartahayn meel gashay oo ka leexatay ma jiro ilaa waxa la gaarsiiyay hantidii booyada la geliyo booyadii la maanta inoo joogaan dhowr toon booyadood oo maanta acid ah oo halka yaala oo markay ay biyaanta dhacdo la dhaqaajinayo berito sanadkii hore yar boon bilba biyaanta dhacday markii waa la dhaqaajiyay la saraari meel boo dhaqaajiyay marka runtii hawshaasi waxaan u maamulnay sidii ugu daafurnayd yaa runtii u maamulay oo haraha laga joogay culimo ganacsato iyo xukuumaddiiba laakiin waa la socotaan tuhunkaasi inuu jiro Soomaa tuhun mar walba hawl kastoo la qabto ma tuhun waayso laba qof oo iskuursaday oo reer dhisaba ya Soomaaliya tuhunka deewayda iska wax kale ku weyn shaqo kale la qabtay intaana ka bixin arrimaha la xiriira coronavirus-ka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga gaashaanto ama dadka lagu dabiibo uu soo rito waxa ka mid ah qalabkan oxygen-ta ama dadka lagaga caawiyo inay neefsadaan sidaynu la soconnana mararka qaarkood intaanu xanuunkaniba dilaacin cisbitaalka guud ee dawladdu ay gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahayba way adkaan jirtay in la helo qalabkaas imika qorshaha ma ku darsateen in la helo ama haddii uu jiro la soo biiriyo waa lagu daray horta wixii la helaya waddanka hadday dad bareefid hayeen waa laga iibiyey marka wixii suuragal lahayay waa la hayaa waa la ururiyey laakiin waxa culayska ina saaran wuxuu ahaa meelo kale ee dibadaha laga ka dalabnay runtii weli dee xanimaadtaasaa saaran imika alaabaana ku sheegaya naga caawini mayna xitaa xukuumaddu lacag waxay ku bixisay alaabta ka hortaga $200,000 shirkad maxalliya la soo wadaniya iyagoo ku dhowda way cadilin waxay soo saaraan ayay leeyihiin laakiin wixii oxygen ahaa runtii wixii la heli karayay waddanka yaala gudihiisa aad baa looga dadaalo waa la hayaa laakiin waxaad moodaa innaga xanuunkii inuu ama Jabuuti agteeda maqlayso xanuunka waa laga helay qofka laakiin waxaad moodaa inuu nagu yar yahay inuu qaabay tahay ma garanayeen dabeecadda iyo hawadan iyo kuleylka waxay tahay garan kari maayaan anoo dhakhtar beehi laakiin waxaad moodaa dadka waxa ku yar soo reedashadiiba ku yar oo in halka uu gaadhaba dadkii uu aad buu ugu yar tahay laakiin wixii la heli karay oxygen-ta waa laga taxadiray waa la hayaa wax la sugayo jira mudane saylici muddo imika 10 sanadood ku dhow ayaad madaxweyne ku xigeen ahayd 7 sanadood waxaad la soo shaqaysay madaxweynihii hore Ahmed Silaanyo madaxweynaha imika Muuse Bixina 2 sanadood iyo badh ayaa imika idin go'ay muddada aad xilka hayseen khaasatan adigu aad madaxweyne ku xigeenka ahayd tabashooyinka ugu badan ee Soomaaliland waxay ka soo yeedhayeen bariga iyo galbeedka haddii aynu kala qaadno gobolka awdal baad ka soo jeedaa galbeedka cabashooyin badan baa ka jira mararka qaarkood gacanka hadal bay gaadhaa ragga qaar baa jabhada ku dhawaaqay meel ay la gaadheenba cabashooyinka galbeedku dow ma kula yihiin runtii cabashooyinkaasi wax laga soo qaadi karana marka la isku yimaadeen runtii la wada hadlo xukuumad ahaan iyo gobol ahaan la wada hadlo wax laga soo qaadi karaa uu jira wax ka badbadaysiina oo badan runtii uu ku jira runtii oo de macaarada ku xumee u badana oo badan uu ku jira marka anigu muddada joogay 7 sano hore la shaqeynay xukuumaddiisa Ahmed Maxamuud Silaanyo waxaan mar walba ku dadaalay inay artaas gacan ka gaadhin dadka reer awdal waxay tabanayaan ay mar walba xukuumadooda kala hadlaan wayna dhacdo ururin fara badan baa sameeyay inaan mar walba tabashadooda aan gacan ku soo koobay inay dadkaasi ay xadka ka bixin khayd maarteen Soomaaliland iyo wixii ummadda ay ku heshay inaan hor keeno mar walba madaxweynaha iyo xukuumadda markaa jirtay laga wada hadlo laakiin sidaan wixii alla qadaraya lama karee muddo wax ka dadaalay markaa miiska wada halka wax lagu dhameeyo marka marar badan oo wixii tabashadii la soo dejiyay la soo ay tabteen wax laga qayb ka mid ah in badan wax laga qabtayna way jirtay in badan oo de marka wali tabashadaas wax ka jiri karana way habayar way aan isla yar waliba aan badnaan karin way jirtaa laakiin inay gaadho heer jabhada la sameeyaa taas waxa isla wax ka badan oo tabasho ka badan runtii oo wax kale macaarado la gashay
oo waxyaabo kale aan ka faahfaahin karin runtii oo ka ballaaran ay dadka qaarkood dabada la gashay maxaa ka mid ah waxyaabaha aad sheegayso mudane mid waxayna siyaasad ka baxsan Soomaaliland runtii oo dad maskaxdooda ay ku bajirtaba in Ethiopia daba la geliyay iyo gobol gaar loo goosto iyo waxaan tabashadii ka siyaada oo waxaan suuragal ka noqon runtii wadanka qaranka waa qaran jira dalka cid kala goyn kartaa ma jirto xuduud buu leeyahay marka waxyaabaha aan oran karo yaro kooban oo iska fikirto meel aragti dheer lahayn oo ila macaaridu la gashay laakiin aan waaqici ahayn ma yaajir laakiin wixii waaqici markii laga hadlay intii badnayd waa la xalli kuwa waaqici waaye ka garowdeen maxaa ka mid ahay wax ka qabateen for example xukuumadda la dhiso kale bariga waa laga tabasha laga muujiyay hadii tabasha laga muujiyay markii dambe wax badan baa laga bedelay oo for example wasiiradii baa la kordhiyay hay'adaha kale madax bannaan iyo martay iyo institutions kale oo marka dadku cabanayeen ayaa wax weyn laga bedelay marka inta badan xukuumaddu wax ka qabataa waa inta gacanta ku hayo madaxweynuhu waxna wax masiir guudo golayaasha oo taasina u taalo ama dastuurka noqonaysa ama dawladda oo dhan ay u taalo sida marka tabashada ku fadhido golayaasha wakiilada kale ku fadhida tabashada badan raawdal waa golayaasha wakiilada iyo saamiga ay ku leeyihiin saamiga ay ku leeyihiin kaasina wax xukuumadda kalideed madaxweyne soo qalin ku bedeli kara maaha waa mid u baahan ummadda reer Somaliland haday tahay reesol ya deeraado tahay ya deereysana taayba in ummadda reer Somaliland wixii ay ka si waaqici uga hadlaan iskana garaaban runtii waa arrin oranaysa war 60kii baan two said ya beesha dhexlahayd beelaha kale oo dhan way third beelahayn iyo qaranka hal wada yeesho oo isma yar qabanayso marka qaabka sidii dadka tabashadaas jirto oo doctor ilaa iyo cid walba ka hadasho tabashada ugu weyn waa taana waxa baanta in aqoonyahanka reer Somaliland siyaasiga reer Somaliland odayga reer Somaliland in laga martay hawshaasi loo daweyn lahaa laga fikiro laakiin aad moodayn dawadeedii laga warwareegayo maalinta doorasho joogto wax la soo yar qaato cid walba ay ku yar dagaalanto noqoto markay doorashan dhaafteen oo aynu deganahayna aan la soo qaadin marka taas oo u baahan runtii in la wajaho oo arrin dhibaato noo taala bariga markaynu eegno isagu ka sii daran yahay galbeedka Soomaa iyagu qodod taan bedelayeen iyagu qodod taasi arrinta 60 ku fadhida beeska 60 ku fadhida baa la dareesay marka 60kii marka eegto hadii 60kii maalintii la tagay la eego wasiir dad kale halkaas u fadhiya waa lagu dhagayo beesha dhac ku dhagan tahay tuu shirkadu haystaa laakiin xukuumad marka la qaybsadana 50-50 baa lahaa taariikh waayanu laba darafyada laba tadhaxay hayeen tii maanta lama soo qaadee xukuumaddiina waxaad moodaa in two sirka iyo wixii ka badan oo lagu fadhiisinaya siyaasiyiintii maartay marka taa qudheedu dayna dhan walba lagu xisaabto hadii 60kii la wada qaaday 60kii la wada qaato oo daalmiina dadkii lagu raali geliyo ay lagu soo dhaweeyo xukuumadda dalkan wada lahaa إلا رالي جرينتي سوا وين كو قصبنا هي سير رئيس المال دلك الله وضع يشوف ما كانوا قانون هدي كان لحل كريم دين سيدي كان له حل كريم له حلو حكومة دي حتى السوق دواد وكان يبدأ مكا لو كلا فوق هاي دي السوق دواد شارك حكومة ده كي ما عدد كومبنسيشن مدن سيل لكن مركب بريق الله هضليو انت بدن دوضها انه مقالة ما هو انت سامي قيبسك هذا نقطة قلياشة إيه هذا نقطة حكومتها وات هرمرك وأي أدو قدم بيان قبل هذا كلا سومالي لان أنت أجرت مركز صدح مالود لقدقو مالهم بد مدحوين كحجينا هيد دي بدعة ممد أيجو كسبدين با مسوا مد حكومة دوغرتاي ما تانو عليها أردها دي بدعة بريجو وحكومة فديها نبتجي درها كجتا أما deegaanada muranka la galiyay waxa weyn deegaanadii barigu muran baa la galiyay oranaya labada laga dhaxaysiiyay dal ama maamul gobolka Puntland iyo Soomaaliland laga dhaxaysiiyay taasi mar walba waxay keenaysaa conflict bay keenaysaa nabadgelyo darro fara badan oo barigu sida kala bada iyo dagaal iyo dhibaatooyin badan oo wali aan moodeyn dhamaano way jiraan
laakiin Somaliland waxba kuma baaqada qaba madaxweynayaasha inta soo maray nin walba waxa kaga baxa dhaqaale aad iyo aad u badan oo halka horumarka gal lahaa mar walba galaya maxay nabadgelyada galaya marka waxaad leedahay waxa meesha ka maqantii caawimadii shisheeya miya marka wax ka maqan for example caawimada shisheeyuhu mar walba meeshii nabad jirtay galayaan oo meeshii ay conflict ka jira ee muran ka jiro ma galayaan for example anu mashruuca JBLJ kale ayaan champion kan hogaamiyaa waxay ka shaqeeyeen goboladii nabadda halka ka bilaabeen markay soo gaadhnay inay sanaag iyo sool ay galaan dagaal kasta waan galnay qoraal kasta waan qoray waxayna UNta siyaasadeedu ma ahayn ay gaadhaa ka shaqeyso imika annaga waxa la yiraahdaa mashruuc la yiraahdaa government led expansion in dawladdu fidiso mashruuca JBLG-ga ayaan marka qaadanay oo marka aan Ceerigaabo iyo Laascaanood iyo saddex degmo iyo maashiixa aynaba aan ka fulino oo tuuliskii halka yaalay iyo nidaamka tababaradii iyo wax oo dhan anigu aan geeyno ka wadnaa laakiin siyaasadii UNtu waxay ka dhigtay halkaasi meel la isku haysto oo marka xagaana qolaas leedahay dad annaga leeyahay soo gelna inaga waxaan leenahay xuduud baan ku xisaabtamaynaa reer Somaliland waxaan leenahay kama soo geli kartiin halka iyaguna waxay leeyahay isir bay ku sheeganayaan runtii taasi marka problem waxay noqotay dib taalo oo deegaanka culays badan ku haya deegaankii dadka soo jeedana dhan isku raacsan iyagu ku dhoodina labadii dhanba way ku jiraan halkan Somaliland way joogaan Puntland way joogaan waxa kala jiidasha siyaasiyiinta marka gobolahaasi ay ku jiraan kala jiidashadaas meel hadal joogo iyo muran jira wad garan karaysaa wax badan baa ka qabiib laakiin Somaliland waxaan ku dadaalaysaa in wixii horumar soo gal la geeyo oo xukuumaddu waxay gacanteeda ku hayso ay gaarsiiso haday macaawinad tahay haday horumar tahay oo muddada deemanka Laascaanood Somaliland ka talaysay isbedel weyn baa ka yimiday iskuulaha laga dhisay jaamacadaha laga dhisay wadooyin baa laga sameeyay horumarku yani qayb weyn ayay xukuumadda Somaliland wixii awoodeeda ka qaatay oo in runtii lacag aynan gobolada kale gelin karin sababta gobolada kale wax si gelin inta badan hay'adaha caalamiga inta badan geliyo maadaama dhul nabad oo degaya su'aasha kale aan jeclay inaan ku weydiiyo mudane waxa weeye adiga qudhaaduna aad qirtay colaadaha xagga bariga ka jira oo runtii dhibaato weyn noqday deegaankan Ceelaf Weyn iyo degmooyinka hoos yimaada dhibaato xoog la ka jirtay walina ka jirta muddo dhowr sanadood colaadaasi soo noqonaysay dawladdu mar walba sidii dabdamiska ayaa ku gurmataan markay wax dhacaan marka maqbuushooda heshaan odayaashana waa ka soo noqotaan waxa la sugaa ilaa inta haddana arrintaasi dib u soo cusboonaanayso ma kula tahay sida dad fara badan qabaan inaanay weli dawladdu kaalinteedii qaadan runtii arrinta Ceelaf Weyn waa arrin masiibo weyn runtii Somaliland nabur weyn oo foolxun ku ah xukuumaddana waxaan uma marxaan runtii haddana waa hortaasoo dagaalku mar walba soo noqonaya muddada xukuumaddii horena ilaa aan islaahay 2 sanadood iyo jajar buu socday iminkan 2 sano iyo jajar buu socdaa waxa la hagradana aanu ma arko runtii aad iyo aad baa runtii deynta haddii kharash iyo socod iyo kale ganacsi waa waxaanad xukuumadda wax karto haddana horta ma dhamaato marka aanu waxaan islaahay waxba lama hagran laakiin xaqi qadarkii baa wali waxa ka socdo qadarkii lagu talagalo wali intii loogu talagalay in ku dhintaan baa wali dhamaanin laakiin mudane saylici dadku waxay tilmaamayaan ciidamadii oo jooga inaan haddana sidii loo baahnaa loo kala dhexgelin ama aan ciddii gafka geysata go'aamada laga soo saaro la fulinin taasi ma ku muuqataa kulli waxaad moodaa in xukuumaddu shacabkeeda inay way dhowraysaa horta oo dhowradii waxa keentay oo go'aano adag oo dadkii lagu tacaalayo oo lagu garaacayo oo maanta lagu dilayo kii qorista iyo xodan runtii lama gaarin marka dhowradii badnaa waxa keentay iyaguna aqligoodii ay ku kala joogi waayaan oo mar walba dagaalkii soo cusbanaanayo laakiin se xukuumadda waxa hawla oo runtii uga baaqda runtii dhaqaale iyo maskax iyo muruq iyo wax walba ciidankeena maanta qaranka Somaliland intuu meel kale ku mashquul yahay runtii wuxuu ku dhibaatooday kala xijoogooda iyo maartay iyo gaadiid ku dhintay ciidankii maalmo ku dhimanaya dhibaato weyn baa jirta
laakiin sida hadana hortii waa waqtigeeda la qadaray dhamaana waa imkan dadaalku dambiya lagu jiray imkana wafti weyn oo 10 qof ah wasiiro u badan ay dawladda madaxweynuhu diray amar cadna waa la siiyay maanta inay gacan adag saaraan waxa la wixii qori haysta iyo cid kastaba wixii huba laga soo ururiyay gacanta lagu hayo waxaan rajaynayaa hadda inay iska soo soo dhamaan doonto gabagabadii waraysigeena ku dhownahay mudane madaxweyne ku xigeen sidaan horeba u sheegay intii Soomaaliland ay jirtay marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan baad imika madaxweyne ku xigeen ahayd laba dawladood oo kala dambeeyay dawladda imika iyo tii Axmed Siilaanyo inkastoo isku xisbi ay ka socdeen ayaad labadaba madaxweyne ku xigeen ahayd dadka isweydiinaya xeeladan cajiibka سيلعي وليه هاي محيطها ما حد يقول جوابي لهيد ما دام أتاي مدحوني كحيجي وقوم مدة دراس ومالا. أرثا حيالات قارة مجرات لهم هدي ويانو دواسك النصيب وتقفل بها لو قدروا بعدها هذا أنا مر والبعلو كمدحوني كحيجي أنا مرة سيدي بيركم أيمن لابد تجرب ترتر على بام خصوصا وحنا كرا سياسي كلية وحنا هي مرة بالله ترتر على حزبيسا كاسو دحبحay 2008 tartan ku soo dhex 2015 ana kursiga fadhiyana hadana tartan adag wala gal ku soo baxay baan hadana nasiibka ay siilada jabooteen xisbiga ka soo baxo qofka xisbiga ka soo baxdo waxa ku xigaan wuxuu noqonayaa tartankii guud ee qaranka runtii labadii jeerba waxa xisbiga nasiibka tireesku midow iyo marba ku guuleysay marna 940 jeer ku guuleysay markii dambana 5 ay ku guuleysay marka asla nasiib kula socda iyo qadar la ku qadarayna umada ku soo baxay waxaan dadka fariisana marka caqli badan ay ama kagaan xoog badan lahayd ma jiro laakiin mudane madaxweyne ku xigeen su'aasha ugu dambeysay ku weydiinayo oo tan la xiriirda waxa weeye dad fara badan dhinaca kale waxay is weydiinayaan muddo dheer baad maxay sahayd من حيث markay leeyahay waa madaxweyne ku xigeen ma laga yaabaa inaad caruuska noqoto adigu maadaama imka loolankii xagga xisbiga uu ka socdo cidii gudoomiyaha noqon lahayd oo inta badanna gudoomiyaha xisbigu uu madaxweynaha marka dambe noqdo ma kugu jirtaa taasi dabcan waxa way ugu jirtaa sababtoo anigu marka ay to laba jeer aan xaq u lahaa madaxweyne ku xigeenka waan soo dhameystay waxa kaliya anigu maanta ay furanay hadii جاني وقتي أنا هلاي وين مدحونه ترتبه الحزب أنا ما أنت إذا أنا إيجا ما دام أنا هاد ذكي أنت ما ذكي حزب وجوبنا يربع ذكي لا بكون يلا بدي لصوب العظيم لكن أنت بدن إن بمل بك صوب بيرت حزبك أما كي وريورس كوا الله فري لحيه ورصد حوري جولستين وين غالبا وصوب بيري دورشوي كده غالبا وصوب بيري ده وترين سعودي وهاي حزبك ما هو بلقى سوف فولي أنا وسألك ترى خصوصا دقائق كسوف فولي الله بكون يلا بدي الرجال وحنا أساس إيش حزبك إذا حق لنا رتي مجبته حزب قرار لو ودي هي أروح قبا وأنا مسنا مدحونها ما تشوفها قدوميها كحجة وترت ممكن مدحونها سي وقت يسوق كذا ما هذا سو وأنا هني كتاجن لكن ده ضد كي لا يمكن الله مقله أما الدواء بدن سماية أما ضد كم هذا الحيان هروج ما تشرين ما أنت كهرت صوما waxaan qabaa rudo kasiir dhawaaqayay marka wax si sheegay way degdegayaan sababta waqti buu leeyahay qofku inuu de musharaxaad mustaqbalkiisa iyo sheego laakiin waxaad moodaa inagu aan si wad umada siyaasadda Soomaaliland runtii inay si wad degdegsan yihiin fursad doorashada maanta dhacday 5 sano qofkan la doortay haddaad sanadkii koowaad baad bilowdo wax 5 sano ka xigta musharax u hay de waxa noqonaysaa nin dagaalka ka socda baashii wajaala ka socda in qoriga ka sii furto rasaasta ku sii dhamayso adoo gibir sii maraya wada maga maxamed la gaari deena aagi ka socday waxa la gaadhay ma jiro anu de goorteeda la sugayay laakiin waxa leeyahay waqti ay noqoto maanta madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaanyo ninka asaasay waxa Muuse Rageerna isna mujaahidiinta dalka soo halgamay isla markaana xisbigaasna asaasay kamid ahaa waxa leeyahay kolku maanta madaxweynaha maanta joogay gudoomiyenimada oo isagu ka baxo anigu marka musharax dadka u tartamaya
yaan ka mid ahay sababtoo ah cid iga xaq mudanna ma jirto oo waxaan idhaa asaasanahay waayo-arnimadeedii baan leeyahay ilaa madaxweynaha waxay iga maanacayaan inuu tartamo qarankan dee aan intaa usoo joogay waxay iga maanacayaan ma jiro aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane cabdiraxmaan saylici intaasna waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada hargeysa aan kula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo imikana gudoomiyaha guddiga la dagaalanka xanuunka coronavirus ee somalilan barnaamijkii intaasi ayuu ku dhan yahay ee intaynu dib u kulmayno nabadgelyo aad iyo aad baad mahadsantahay